بسم الله الرحمن الرحيم داوديال مركزتو جوجتان تلفزيونka qaranka Soomaaliyeed qaybtiisa wadanka Switzerland waxa uu suurta gashay in magaalada tan Lausanne wareysi gaar ah ku kula yeesho mudana ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada tan Lausanne ee wadankan Switzerland waana shakhsiga kaliya ee asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya ee ka tirsan golaha deegaanka magaalada Lausanne waxaan rabnaa in aynu wax ka weydiino taariikhdiisa iyo waliba sida uu ay ugu suurta gashay inuu ka mid noqdo gola sharci dejin oo magaalada tan Lausanne oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn caalamka inuu ka mid noqdo marka hore soo dhawow waxaan kugu soo dhaweynayaa telefishinka qaranka Soomaaliyeed dalmar waa magacayga soo dhawow السلام عليكم بارك الله فيك واد محسنته kulmiye waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo maadaama aad ka tirsan tahay golahan deegaanka degmada Lausanne ama magaalada Lausanne xaruntoodana aan joogno bal wax yar inta aan u gudo galin hawlahaaga shaqada bal taariikhdaada kooban noo dulmar heerarkaaga waxbarashada halka aad ku dhalatay halka aad ku soo barbaaratay shakhsiyadaada dadka Soomaaliyeed ku daawanaya balbar soo dhaw بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلمر واد محسنته كسو دو مقالة لوزان وانا ماشان واحد جوجنا قولها ديغان كمقالة ذا حدان وحير كاغا شيء كارو تاريخ ذا اني وحا ويل كل شيء ودن كان سويسرلاند مال ماشان اجرتو ساعد قول فالي لدهان كل شيء waxaa nolosheeda dhan ku noolaa Switzerland intaan ahaan laga yaabaa 2 sano oo Ingiriiska wax ku soo bartay waan ku koray magaaladan waxbarashadeeda dhan aan ku dhigtay jaamacadan uga soo baxay ilaa heer jaamacadan ku dhameystay reerkayga familkayga dadkayga dhan intayna degan yihiin qaxootinimada ku soo galeen wadankan taas waxa waaye taariikhdeeda wax yar ku soo kooba goorma ayaad ku biirtay siyaasadda wadankan Switzerland hadii aan sii raacsadane xisbiyo kala duwan ayaa magaalada tan ka dhisan xisbigeena ka tirsan tahay siyaasadda waxaan ku soo biiray 6 sano ka hor 23 sano 22 sano camalan jiray waxaan ku soo biiray xisbi la dhaho Social Democrat waa xisbi oo maxaa la dhahaa fikradiisa iyo visionkiisa aad uga helay waa xisbiga bas maxaa la dhahaa oo weligiisa taageeri jiray maxaa la dhahaa dadka ajnabiga dadka u fududeeyo maxaa la dhahaa in qaxootinimada laga aqbalo dad maxaa la dhahaa waxay ahaayeen siyaasad ahaan dad ajnabi ka dhex muuqdeen saasay tahay waxaan doortay siyaasadda inaan bilaabo oo aan ku biiro xisbiga Social Democratka waa tahay Switzerland waxa la sheegaa inay ka mid tahay wadamada xirxiran siyaasadooduna adag tahay in la galo waliba dadka aan dalka u dhalan inay ka mid noqdaan marka adiga oo shakhsi Soomaali ah qaaradda Afrika ka yimid sida ay sheegtay qoyskaaga markood hore ay wadankan qaab qaxooti ay ku yimaadeen sidee ay kugu suurta gashay inaad ka mid noqoto golahan deegaanka magaalada Lausanne horta waa runta wadankan waa wadan aad u xirxiran siyaasadiisana waxa waaye siyaasad oo cunsurinimo badan ku jirto waa wadan maxaa la dhahaa xisbiga number 1 u ah waa xisbi oo ajnabiga muslimiinta aad u nacab saasay tahay ani waa ku adkaystay inaan maxaa la dhahaa siyaasadda bilaabo wax loo baahan yahay in la ogaado waxa waaye siyaasad hadee ummad ama maxaa la dhahaa community ay haystaan dad matalo weligooda ma noqon doonaan dad maxaa la dhahaa la xumeyn karo ama la cunsuriyin karo taas waa shay tan labaad ani Soomaalida sameysay inaan maxaa la dhahaa kursigan hadda maanta aan ku fadhiyo inaan ku fadhiisto doorasho markaan gale Soomaalida aad maxaa la dhahaa igu codeeyeen aad maxaa la dhahaa igu taageereen Soomaali darteeda maxaa la dhahaa maanta siyaasadda meeshan ka maray meeshan wali u socdo Soomaaliya maxaa la dhahaa ka dambayso aad ugu mahadsan yihiin waa tahay adigu maxaa u gashay marka aynu fiirino kulmiye ahaan maxaa u dooratay
in aad siyaasadda Switzerland ugu biirto ani waxaan u doortay siyaasadda Switzerland inaan ku biiro oo aan ku shaqeeyo siyaasadda aan ka shaqeeyo laba arimood arinta ugu horeysa waxa waaye waa hobigeyga aad aan uga helaa waana bartay waa waxa maxaa la dhahaa takhasuskeyga uu noqday tan labaadna maadaama magaaladan Lausanne ay tahay magaalo ee Soomaalida ay ku badan yihiin dadkana saan u sheegay markasta waxay u baahan yihiin matalaad caawisna way u baahan yihiin Soomaalida dartooda maxaa la dhahaa ugu biire siyaasadana aan maxaa la dhahaa isku soo sharaxay in la ii doorto golaha goormee ayaa lagu doortay ama sanadkee ayaa lagu doortay xubinnimada golaha deegaanka magaalada tan Lausanne waxaa la ii doortay sanadii xoogaa ka hor bisha afaraad 2021deeda waxay ahayd election doorasho aad u adag ka badan kun qof ama xal dhaha isku soo sharaxday kunkaas qofna 100 bas laga doortay alxamdulillah waxaa noqday qofka labaad number 2 ka soo galay taasna wali waxa aad ugu mahadsan ummadda Soomaaliyeed oo aad iyo codeeyeen waa kaasa waa tahay inta aad ka mid noqon golahan deegaanka degmada ama magaalada Lausanne ma jireen xilal kale oo siyaasadeed oo aad soo qabatay way jireen xilal kale siyaasadeed aan soo qabtay gaar ahaan xilka xogahayaha xisbiga social democrat oo magaaladan Lausanne aan u ahaa xogahayaha walina waan u ahaa hadda asbuuc ka hor ama xal dhahaa mar saddexaad la igu doortay xogahayaha inaan noqdo xisbigeyga golahan baarlamaanka ee aan fadhiyo ma waxa tahay shakhsiga kaliya qaaradda Afrika ka soo jeeda ee fadhiya mise waxa jiro shakhsiyaad kale oo iyaguna kamid ah xildhibaanada halkan fadhiista horta hadii laga hadlo ajnabiga kuma yarin golahan waxaan nahay boqolkiiba 20 waxa laga yaabaa dadka inay yihiin ajnabi tan kale hadii laga hadlo qaaradda Afrika waxa u maleynaa laba bas inaan nahay gabar kale oo iska dhal iyo ani oo maxaa la dhahaa Soomaali ah Soomaalina hadiiba laga hadlo gobolkan iyo magaaladan ba qof maxaa la dhahaa siyaasad oo laga doortay oo MP member of parliament waxa ani basa ka jiro wax yar koon waxa noo sharaxdaa shaqooyinka qolkan lagu qabto ama xaruntan aan joogno hawl maalmeedka aad qabataan maxaa kamid ah run ahaantii wax badan aan qabanaa haddaan wax yar ku faahfaahiyo aan ku sheego for example waxaan sameynaa budgetka magaalada ama xal dhahaa ka shaqeynaa oo aan u codeynaa budgetka magaalada Lausanne waa magaalo aad u weyn oo lacag badan waa sanadkii 2 bilyan waaye horta taas waan u codeynaa waxyaalo kale oo badan waan ka codeynaa waxaan u codeynaa magaalada dhismaha laga sameeyo hadii loo baahan yahay iskoolaad cusub in la dhiso jidadka qaabka maxaa la dhahaa loogu socdo xataa waxa la yiraahdo politicska siyaasadda oo integrationka dadka ajnabiga magaaladan waan ka shaqeynaa anina waxa waaye wax oo aan aad uga shaqeeyo dadka isku dhaxgalka maxaa la dhahaa ummadda Soomaalida muslimiinta ajnabiga si maxaa la dhahaa fiican ay isku dhaxgalaan dadka magaaladan okay adiga kulmiye ahaan maadaama aad tahay shakhsiga kaliya ee Soomaaliyeed ee ka tirsan golaha deegaanka degmada tan Lausanne xiriirka aad leedahay dadka Soomaaliyeed iyo ka warqabkooda intuu gaarsiisan yahay saan ku sheegay marka hore su'aashaada ka horeysay dadka Soomaaliyeed darteeda maxaa la dhahaa horta kursigan aan ku fadhiyaa taasna mar kale waa ugu mahad celinaa tan labaad dadka Soomaaliyeed ee magaaladan waxa waaye dad aan xiriir fiican isla leenahay waxa kamid ah dad familkeyga macallimiinteeda dugsiga dad maxaa la dhahaa aan masaajidka aan isku aragno ciid aan isku aragno waana dad maxaa la dhahaa aan tijaabiyo markasta inaan caawiyo waxaan sanadkii hore aan bilaabnay xafiis aan furnay
oo aan u bixina some help xafiiskaas waxaan ku aqbalnaa dadka Soomaaliyeed ee degan magaaladan waxaan ku caawinaa dhibaato kasta ay leeyihiin haday leeyihiin dhibaato oo maxaa la dhahaa wax ku saabsan sharciga ama ku saabsan qaxootinimadooda dadka Soomaaliyeed alxamdulillah xiriirkayga aad u fiican yahay waa matala ayakana dartoodan ugu fadhiya kursigan saasaytahay waa xiriirkeena aad u fiican yahay maadaama golahan looga hadlo xaaladda magaalada Lausanne dhammaan mudanayaasha ama xildhibaanada joogana ay degmooyinka uu ka kooban yahay magaalada tan ay matalayaan maxaa laga aaminsan yahay dadka Soomaaliyeed ee magaalada tan ku nool dadka kale ee kula ah xildhibaanadana fikir noocee ay ka haystaan Soomaalida degan magaalada Lausanne fikir fiican ay ka haystaan dadka Soomaaliyeed Soomaalida waxa way dad oo aad u degan maxaa la dhahaa magaaladan waa dad kulligooda maxaa la dhahaa shaqaysta waa dad maxaa la dhahaa iska normal ah waxayna maskaxda dadka xubnaha kale oo kamid ah baarlamaankan ama golahan ee ka aaminsan yihiin Soomaalida waa waxa aan tuso anina waxaan tijaabiyaa markasta inaan tuso waji fiican waji qurxoon waa qiyaas ahaanna waa waxa Soomaalida ee ka aaminsan yihiin ugu badnaana dadka meeshan joogo way la kulmaan ama saaxiibay leeyihiin dad Soomaali alxamdulillah magaaladeena markii laga hadlo Soomaalida waji aad u fiican ay leedahay marka laga reebo golaha magaalada tan Lausanne waxay leedahay golo deegaan iyo golo baarlamaan oo gobolka ah kuwa oo dawladda federaalka ku matalo marka ma jira qorshe aad doonayso inaad halkan uga gudubto baarlamaanka guud ee gobolka aad iyo aad أنا الحمد لله dhalinyaro ah wali waqti fiican ah haysta waxaan rajeynaa doorashadan si fiican ah igu doortay tan kalena soo socoto sanadada soo socdana inaan ka qayb galo doorashooyin kale tan gobolka iyo tan maxaa la dhahaa wadanka ee baarlamaanka insha Allah inaan ka qayb galo taasna ani waan rajeynaa laakiin horta waxaan u rajeynaa ummadda Soomaaliyeed oo degan maxaa la dhahaa magaaladan iyo wadankan inay helaan qof u matali karo heerka oo federaalka heer wadan waa arin aad u muhiim ah hadaad fiirisid ummad kasto ama dad kasto oo ajnabi ah oo maxaa la dhahaa heleen qof matalo heer federaal wax fiican ay ka qabteen wadanka ha noqoto ganacsiga ha noqoto waxbarashada ha noqoto xataa inay maamul ay qabtaan iyo maxaa la dhahaa xil in la siiyo waxa rajeynaa inaan noqdo qofka u horeeyo maxaa la dhahaa xilalkaas waaweynka inaan gaaro maxaa la dhahaa Soomaalida ay ka faa'iideysato waaga fursadda aad ka haysato xisbigaaga inay tusaale ahaan ku sharxaan xilka baarlamaanka gobolka si aad uga mid noqoto national raadka ama standard raadka federaalka Swiss-ka intee la egtahay 10 sano ka hor ma la rajayn karin golahan in qof Soomaali loo doorto xataa qof madow in loo doorto arin aad u adag ahayd maanta macquul ay noqotay waxaan rajaynaynaa 10 sano ka bacdi inaan aragno wax oo la arkin insha Allah ani waxaan rajaynaa hadduu xisbigayga la noqoto isdhahaan inaan qofka xilkaas qaadi karo ani waxaan aaminsanahay horta dhinaca xisbigayga inaana wax aan ka arki doonin oo dhibaato ka bacdina shacabka dooran doono waa wadan dimuqraasi ah oo maxaa la dhahaa dadka ay is doortaan taasna waa ilaahay gacantiisa ku jirta laakiin ani ahaan waxay ila tahay 10 sano ama 20 sano ama 30 sano ka bacdi in la arki karo qof Soomaali ama حتى مذوب أفريكان إنه قاعدن كره حلال أد أسرائيل سيدا محل لها إن قدومية قبلك أما حتى محل لها إن مدحدة وضنك. وياي كلمية أد بأمها سنت هاي سومالي بدن أيا مقالة تنكونول إن ورئيسي أنا دعوان دونه إن محاوق باقيسا فرين تعد دوني سو إن أدلو ذاكتو محيطها. horta Soomaalida oo degan Lausanne mar labaad way aad u mahadsan yihiin ayagana dartooda aan u fadhiyaa kursigan laakiin waxa dhihi lahaa dad firfircoon tihiin wali waan dadaali karnaa
wiilashii gabdhaha Soomaaliyeed ha ku soo biiraan siyaasadda sida aan u bedelno maxaa la dhahaa nolosheena iyo waxa aan u baahanahay tusaale yar hadaan siiyo hadaan maxaa la dhahaa bari aan u baahanahay saale ciid ama maxaa la dhahaa meel dadka Soomaalida ay ku dabaashaan si ay u asturan yihiin hadaan haysano dad badan maxaa la dhahaa oo kamid ah golahan waa wax aad u fududaan doono hadaan rabno xataa inaan dukaamo furano ama aan maxaa la dhahaa ganacsiyo aan furfurano hadaan haysano dad maxaa la dhahaa golahan kamid ah ama siyaasadda ku jiro codkeena kor u qaadmaa taasa maxaa la dhahaa fariin u siin lahaa ummadda Soomaaliyeed ee Lausanne degan mar kalena way mahadsan yihiin aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Kulmiye oo ka tirsan golaha deegaanka magaalada Lausanne ee wadankan Switzerland oo aan wareysi gaar ah kula yeelanaynay gudaha xarunta baarlamaanka ee magaalada Lausanne Yuusuf Kulmiye waxaan uga mahad celinayaa wareysiga uu siiyay telefishinka qaranka Soomaaliyeed waxaan ugu hambalyeeynaa sidoo kale guusha uu ka gaaray heerkiisa siyaasadeed ee wadankan gaar ahaan magaalada Lausanne Yuusuf aad baa u mahadsan tahay waan kaaga mahad celinayaa wareysiga aad siisay telefishinka qaranka Soomaaliyeed soo dhaw barakallahu fiik darmar aad u mahadsan tahay